السلام عليكم صاحبيال kusoo wada ciyaarihii warka gudoomiye Kamal Daarigan soo qaadan doona oo ay maanta qayb ka yihiin maxaa ka cusub Chelsea iyo tababaraheeda cusub waxaan eegi doonaa Messi oo xal marka lagu ooriyay wartan waxay ka dhigan tahay odagu inuu Barcelonadiisa isaga laabanayo halkaas baa odagu cumada lagu tuuraayo lagu shafaayo lagu ciseeyaa iyo kuwa kale war saaxiibayaal subscribe kana sar ku channelka cusub ku jiray share iyo like tan iska dirkan saxabka la ciyaar u jecel barnaamijka lagu gaarsiina Paris Germany ayaa la garaacay wax weeyaan biishiis ayaantan zeer noqdo idin Faransiis wax malaysiin dheelo malaysiin Faransiiska ciyaar ma taalo Faransiiska barigoor waxa la dhigi Real Berley waay biish wax ku aada malaha horeelku way qaadayaan laakiin waa daacadii waa wax la garaaci karo marka Faransiiska arkayso habeenna qaar waxaad arkaysaa iyagoo la garaacayo meel la saaray habeen iyo waxaad arkaysaa xilli dambaxsanaya iyo xilli bardaba bareejeniya xalna waa laga badiyay Lyon baa ka badisay biishi intaan xulku la aadin Rennes la ku garaacday marka la soo laabtay 2 isbuuc kadibna xalay hadana Lyon baa guriga ku garaacday waa laba ciyaar isku xigta oo biishi la garaacayo marka waxa weeyaan nimankii ayaantan waa ka taalaab ninkii Neymar ana goor kooxda ka dhaawacmay buuqaan iyo waxaan kuma jiro Champions ka hor bunikaas wuxuu yiri waa dhaawacanahay marka idin kale isla boodboodu yiri macna ya walabada nin barasharkii dhibaatada ku daayay Messi xal wuxuu ciyaaray kulankiisa kontonaad ee horyaalka Faransiiska kooxda Paris Germany laakiin habeen fiican oo hayno habeen guul daro odaga lagu soo gootay runtii ama lagu soo dhaweeyay xalis waxa la arkayay mar kale taageerayaasha PSG oo ku orinaya Messi ya taasoo ka dhigan baa leeyahay tani inay tahay fariin Barcelona loo diriyo leeyahay warshiiska waa hirgelin kartaan ya todobaad Barcelona inuu sheegeen runtii in ay Messi doonayaan marka waxa weeyaan kadib markii todobaadka Messi la xiriiriyay kooxda Barcelona xalay markii magaca Messi uu ka soo baxay boorka biishi wuxuu sameeyay tahan markii lineup ku dhawaaqayaan magaca ciyaartooyga ay kor laga soo sheegaya markaas qaarkii uu sacbi karaan qaar ku kacsiin oo ku ooriyaan xalay markii magaca Messi lagu dhawaaqayay ciyaartii Lyon ya waxa hal mar la maqlay sawaxan garoonka qabsaday oo taageerayaashu ay ku orinayeen Messi magaciisa waxaas Messi lagu orinaa macna Messi wade akata ayaa saas marada loo orinaa macna marka odagii dhamaa ee weynaaba Faransiiska waxa loogu dhigo ma taqaan jaabay yani ciyaarto iska caadiyo normal yani saas ahayn marka maaluda Champions markay ka soo hareen bay Messi ku oriyeen oo ay yiraahdeen nin waxaan ku siinay waxaad noo qaban isku mid ma aha xalina waxay ku oriyeen ciyaartii Lyon ka horeysay marka waxaan dhan waxay soo dejinayaan baa leeyahay ninkan uu iska aadi karo dhankan iyo Barca marka Barcelona way xaqiijiyeen midaas inay Messi doonayaan oo madaxweyne ku xigeenka hadlo wuxuu yiri xiriir baan leenahay Messi iyo Abis waa wada xiriir baan naga dhaxeeya oo arinka ku aadan heshiiska sidoo kale waxa la arkay tababaraha Bishi oo arinkaas niyad ka muujinayo arinka Messi inuu sii joogayo Xavi waxa la arkay inuu dhahaya Messi waan soo dhaweynaya markasta ready baan u nahay ya marka ilaa hadda Messi wuxuu badan yahay halkan waxa la arkaysaa saaxiibkiisa Aguero iyo Maradona wuxuu mataqaana waxa jirta rajo Messi ku aadan inuu Barca dib ugu soo laaban karo waxaan sidoo kale uu sheegay saacad ugu dambeeyay habeenkii King League waxa jira koob Jared Pique iska leeyahay oo rag odayaal ay ciyaaraan oo todoba ah habeenid Camp Nou baa lagu ciyaaray jamaahiir badan ka soo qayb gashay waxa meesha looga dhawaaqay magaca Messi wuxuu sheegay in arinkaas ay mataqaana yani door weyn ka ciyaari karto soloshada Messi hadda ka hor Ronaldo isagoo ka dhaliyay goal Juventus oo islaab aha ya ay jamaahiirtii kooxda cajuusta iyagii u socotay Cristiano Ronaldo Madrid ka tirsan taas waxay door weyn ka ciyaartay Ronaldo inuu Juventus tiimaaday marka wuxuu leeyahay door weyn bay ka ciyaari kartaa Messi magaciisa ku dhawaaqayeen habeen dhaweed markii League la ciyaarayay inuu Messi halkan iman karo bay ayuu leeyahay ninka saacad ugu dambeeyay xalay waxa ciyaarta Faransiiska commentator gareynayay oo soo tabinayay ninka raado Thierry Henry waxaan Henry uu wariyay oo meesha wax ka tabinayay ciyaarta waxa la sheegay horyaalka Faransiiska inuu jeclaan lahaa inuu Messi ku arko inuu dib ugu soo laabto kooxda Barcelona wuxuu leeyahay Lionel Messi oo ku laabta kooxda Barcelona waa jacayl kubadda u leeyahay runtii ya marka ninkaasna halka uu kula taliyay waxaan xitaa saacad ugu meesha laga saaray in Messi uu MLS ka iminku aadin Messi wala Saudi hadda ma aadayo Messi wuxuu rabaa Europe ka sii ciyaar sanada kale marka waxa loo arkayaa dooq weyn oo u furan inuu Barca dib ugu soo laaban karo marka Messi biishi heshiis cusboonaysiin loo malan isku soo dhawaa karaan Messi an ma uu leeyahay urina markii labaad buu leeyahay taana waa taa dhanka tababarayaasha saacad ugu dambeeyay Chelsea ayaa xaalad xun dhex gashay Potter waa la ceeriyay markii la yiri waryahay warkaagu wakaalinta 11aad inaad nageysay marka ninkii waa la ceeriyay xil ciyaareedka Premier League raacdays u baa ka socda 13 tababare ayaa xil ciyaareedka Premier League la raacday waa 13 tababare seasonkan Bagamunda laga dhigay guri jooga laga dhigay shaqaalaha haysata marka ogowna 9 tababare baa hadda shaqadooda haysta oo xil ciyaareed ku bilowday oo tababare ah يعني markii August ku bilaabmay ila alaan seasonkan 13 tababare la raacday kaliya 9 soo hartay oo seasonka ku bilowdeen ilaa hadda shaqooyinkooda ay haystaan marka waa ka hadaba Potter iyo Rodgers waxay noqdeen laba tababare oo hal maalin la raacday shalin waxa la raacday Rodgers
oo macalinkii Leicester ahaa saacada kadibna waxaa la raacdiyay Potter waa markii ugu horeysay 2015 waa muddo laga joogo iminku 8 sano in hal maalin gudaheed Premier League la arko laba tababare in laba team ay kala ciiriyaan marka waa ka haddaba tababaraha xigo Chelsea waa Nagelsmann ilaa hadda tababari Bayern Munich laga raacday isaga ugu cadcad baa leeyahay inuu shaqada tababarnimo ee kooxda Chelsea uu qabanayo ninkan Bayern buu ka soo tagay xataa ninkan ma xumeyn wuxuu lahaa maalin ninka reer Hollandeeska ah Delight wuxuu lahaa Jones soo ciyaari jiray wuxuu yiri waxaan la yaabaa sababta ninka lagu raacday maxaa yeelay horyaalkana kaan labaad baan ku jirin hal dhibcood baa laga saray Champions League-guna waa tan meel fiican joogno oo sideedamaad joogno ma garanayo sabab lagu raacday Nagelsmann marka ninkaas xogaa arrimo discipline baa lagu raacday mooyaane tababar ahaantiisu waa tababarnimo aad u fiican weeyaan walow suuqa ay joogaan Zidane oo Bagamondo iska Zidane oo kale guri joog iska ah Pochettino oo kale ninka la yiraahdo Enrique oo kale rag badan ay joogaan haddana waxaa la Chelsea Nagelsmann bay ku cadcadahay inay tababar ka dhigtaan waxaa la sheegay already inay wada hadallo bilowdeen oo runtii ay sii socon doonaan saacadaha soo aadan wada hadallada tababarnimada Chelsea ninka lagu wareejinayo tababarka lama soo shaqaadin baa leeyahay oo Pochettino lama soo shaqaadin Nagelsmann uu baabal ninka shirki ugu horeeyay Chelsea lagu soo shaqaaday armaan kooxda tababarka ninka Habana tababarnimada loo dhibay baa leeyahay laakiin waa koormay warar ayaa sidoo kale waxay sheegayaan inaanu Chelsea iminku degdegeen tababarahooda xiga walow Nagelsmann ay qarku saarinay tababar ka dhigaan balse saacad ugu dambeeyay waxay xaqiijiyeen nin la yiraahdo Bruno inay ka dhigeen yani tababaraha ku meel gaarka inay ka sii dhigeen iyaga oo nin ku meel gaar kooxda ku sii haynaya laakiin waxaa la Chelsea hadda kuma jiro wax degdeg ah oo ay macalinkooda cusub ku magacaabayaan sababtoo ah wuxuu ka baqay baa Boehly haddana hadduu tababaro cusub magacaabo haddana goor dhow inuu raacdiyo marka tababarahan waxaa la Boehly waa ka fikira wiri kowde marka hadda wuxuu rabaa inta ka dhimay xilli ciyaareedka inuu caawiyaan kooxda u sii hayo arka amu meel xun idikridahay Bruno Selter baa la ninkan inaad leedihiin Kallen sanadka inta ka dhimay aan tijaabino armu karna idila taga karo ku intuu idinka la tagay walow macallimiinta markay ku meel gaarada ay isaga qabato baash isaga toosto balse ninka la yiraahdo Boehly ma rabiyo macalinka xiga inuu degdeg ku magacaabo waa inuu nin ka fiirsado noqdaa maadaama kii ugu horeeyay hadda markuu xilka madaxweynaha qabtay 7 bilood kooxda joogay uuna raacdeeyay isagoo kooxdu geliyay kharash dhan 360 milyan bishii January ayuu isaga geliyay kharash dhan 600 milyan marka waxa leeyahay warku waxay sheegayaan Chelsea kuma degdegi doonto macalinkeeda xiga ninkan ayay doonayaan baa la inta kana Cissé ku inuu teamku sii hogaamiyo balse wax walba waa suurtagal wararka doona wixii soo kordha Potter waqtigiisii kooxda Chelsea 22 ciyaar Premier League ayuu kooxda Premier League 22 ciyaar ayuu maamulay 7 ay badiyeen 7 baraji bay galeen 8 jeer ayaa laga badiyay 21 gool bay kooxdu dhalisay 21 gool waa laga dhaliyay runtii inta dhaliyay in lamid baa laga dhaliyay runtii waxaana kooxdu ay awood u 9 ciyaar oo kamid inay gool dhaliyaan marka waa sababtii keentay ninka in teamka laga celiyo tan iyo 2004 waqtiyadii Abramovich markaan ka soo bilowno Chelsea dhowr tababarayaal bay ciirisay waa koox lagu yaqaano ciirinta tababarayaasha Mourinho, Guarenti, Scolari, Hayden, Ancelotti, Villas-Boas, Di Matteo, Benitez, Mourinho, Hayden, Conte, Zari, Lampard, Tuchel iyo Potter iminku la raacday haddaba ogow Chelsea ninka loo dhiibi doono jibaal weyn baa sugay yani ciyaar ma ahan maxaa yeelay still Chelsea waxa ku socda Liverpool oo habeen dambe la ciyaarayaan kadib Wolves kadib Real kadib Brighton kadib Real kadib Brentford labadii madax adeeg kulaha ay la ciyaarayaan Real Madrid oo baab kabiir ah oo laba kula ciyaarayaan Wolves oo iyaga xataa macaanka iska ah iyo Liverpool habeen dambe la ciyaarayaan ka xiga ee la magacaabi doono xataa ama hadduu caawiyuhu noqdoba wallahi warar baa sugayo taana waa taa waxaana kaa yaabinaya waxaa kaa yaabinaya nin haddii meel looga arko inuu nin fiican ahayn meel ayuu haweenka ka yahay bal fiir iminku Leicester saacad gudub markay raacdeen Rodgers waxay iminku doonayaan baa lay Potter inay tababar ka dhigtaan waa Potterkii la celiyaa Chelsea lagu raacday ma taqaanaa sababta war Chelsea way ka tambadisay ninkan kooxaha normaalka dhexdhexaadka wuu wadi karaa ninkan Brighton waa jiidi karay ninkan marka koox dhexdhexaad oo kale waa loo dhiibi karaa laakiin koox sida Chelsea oo kale dhaqaale iyo qarash pressure saaran ma jiidi karo hadda Leicester baa doonaysa inay tababar ka dhigtaan